maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo ay weelinayaan mas'uuliyiin sare oo ka socday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxay maanta tababar u fureen xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera iyagaasima waaxeedyada kala duwan ee ka howlgala dawladda hoose ee degmada Berbera tababarkan oo ay ujeedadiisu ahayd isla markaana ay xildhibaanada iyagaasimayaashu ay ku baranayeen xalinta khilaafaadka ayaa waxa si wada jira tababarkani u fulinayay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo ururka ay ku midoobeen dawladaha hoose ee degmooyinka Soomaaliland waxaana ugu horeyntiiba kulankani ka warbixiyay mas'uuliyiintani labada hay'adood oo ka warbixiyay kulankani iyo ujeedada loo qabtay xalinta khilaafka أنا عاقل معنا حللت خلاف مركب واحد هذا دل كانت كيدي ولا كانت ريحة مرنا دبات وجيست مركوين حلل ساعة ودبات وجيست خلاف كنا ضمنها خلاف ودعين لكن معلوماتنا بحفظها دوت وجدت روحوية إلا أقاسمه الله مأموره خلاف كنا عاي أول تهيو وإلهي بهدي ما أنت وحين سجلني فritaankii tababarkii xalinta khilaafaadka ee loogu talagalay degmooyinka oo ka howlgalo mashruuca JPLG tababarkani waa degmadii shanaad ee uu ka qabsoomo ilaa hadda mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariicda ay fuliyaan ama ay ku deeqeen mashaariicda JPLG-ga waxaana fulinaya ururka dawladaha hoose ee Algasal tababarkan wuxuu qayb ka yahay mashaariicda horumarinta shanta hay'adood ee qaramada midoobay ka tirsan degmooyinka dalka ka hawlgalo iyo wasaaradaha qaarkood ee hormuudka ah wasaaradda arrimaha gudaha ay ka wada shaqeeyaan mowduucan aynu maanta galayno oo aan noqonayo taqriiban magaaladii afraad ee laga qabto waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in aad iyo aad looga faa'iideysan doono wuxuu ku saabsan yahay مشروع وكسابسي ومشروعات لوgu baayo dawladii hore ama xildhibaanadii ka horeeyeen way qaateen maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo isna kulankaasi ka hadlay ayaa ka waramay ahmiyadda uu kulankani u leeyahay xildhibaanada iyagaasima waaxeedyada dawladaha hoose waxaana maayirka hadaladiisii kamid ahaa iyo dhaqaalahooda soo qaaday kamaanta waxaan rajaynayaa inaynu xalinta khilaafaadka ka faa'iideysan doono insha Allah ta'ala taasoo mid walba ama xildhibaan ha ahaado oo maamulka kale ha ahaadee ay tahay mid maalin walba hor taagan inay yahay khilaafaadkaas oo shubay qayb ka yahay khilaafaadku insha Allah waxaan rajaynayaa in ka faa'iideysan doono runtii waxaan ku baraarujinayaa ka soo qaybgalayaasha inay aad uga faa'iideystaan mowduucani maaha mowduuc sahlan waana mowduuc aad u ballaaran ودقلكيسنا إن شاء الله مركب ميكانيزم كيس الله قلابون هو اللي فهم دونا وعن شعله حلبانه لأنه حتى يرجع شروا وأنا قاعد يشوا فريت وأنا شريت وأنا وراك سوق قريب قلنا يلا يقول ضياني هنا كلهم يكعسوا بها كفاية إذا يستان خالد حسن خرش تلفزيون كعالمي Somali News مقالة بربراء